Dowladda dalka Kenya oo kaashanaysa dalka Mareykanka ayaa ka shaqayn doonta xasilinta gobolka Geeska Afrika. Waxaa arrintan ishaaca laga qaaday kadib kulan dhex maray madaxweynaha dalka William Ruto iyo xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken. Antony Blinken ayaa sheegay in Kenya ay qasab ku tahay inay safka hore kaga gasho xaqiijinta nabadgelyada Itoobiya, Soomaaliya iyo Congo. Waxa uu dhanka kale Mr. Blinken bogaadiyey dimuqraadiyadda sii kobcaysa ee dalka Kenya iyo madax bannaanida maamulada dowladeed. Madaxweyne William Ruto ayaa dhankiisa cadeeyay inay ka go'an tahay sii xoojinta dimuqraadiyadda iyo madax bannaanida xafiisyada dastuuriga ah. William Ruto ayaa sheegay in xasiloonida Geeska Afrika ay ku xiran tahay Soomaaliya oo nabad ah. Waxa uu carabka ku adkeeyay in madaxda looga baahan yahay inay ka wada shaqeeyaan sidii argagixisada looga ciribtiri lahaa ee gobolka. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa ka qayb galaya shir madaxeedka ee dhex maraya dalalka Afrika iyo dalka Mareykanka, taasi oo looga hadlayo arrimo fara badan oo ay ku jiraan nabadda iyo maalgashiga oo Mareykanka ku doonayo inuu maalgashto dalalka Afrika. Madaxweynaha ayaa u safray dalka Mareykanka wax yar kadib markii ay dhacday xafladii xuska maalinta Jamhuuriga.